اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من أيدينا ومن خلفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. runtii waxaan rabnaa aniyo Axmed labadoodaba waxaan maartay ka shaqeynaa amba aan dadka aan u sameynaa training in la raadiyo in la baaro in la doondoono oo la barto wax walba barasho ay u baahan tahay. annagu diyaarinta aan diyaarinayno casharadaas baan wax badan ka baranay wax badan ayaan ka baranay marka idinkuna inka badan baad ayaad ka heli doontaan insha Allah in wiilasha hays qoraan gabdho hays qoraan madartii ha dhageystaan meeshay doonaan ha joogaan koorsooyin online aan bixinaa bal baaro oo raadiya hadday wax idinka cajabiyaan isqora ahla wa sahla wajazaakum Allah khair. Axmed bana dhaafay aad baad mahadsantahay Cumar. bismillaahir rahmaanir rahiim. aniga walaalkiin Axmed Jawhar Bilaal hay-adda Happy Marriage Academy sida ay hiba soo sheegtay ayaan ku gudbinaa seminaaro tababaro aan markaa ku tababarayno dhalinyarada iyo dadka waaweyn dadka xasleyda isfahanka labada qof. marka waxaan oran lahaa runtii qofku wuxuu u baahan yahay sida uu u diyaariyo waxbarashada kuriirkiisa meesha uu shaqada u doonan doono 20 sano sida uu u diyaariyo ayuu ugu baahan yahay qofku in uu diyaariyo uu barto nolosha qoyskiisa uu ku noolaan doono. saas daraadeed waxaan oran lahaa meel kasta oo ka heli kartaan ka raadsada. annaguna waxaan idin haynaa mid aad kula fahmayeen luqadaadii diintaadii kaljarkaagii waliba lagugu darayo cilmigii sayniskii ee maaragtay ay ku saabsanaa psychology-ga biology-ga iyo sociology-ga. on top of that diinta ayaa ugu wada horeysa walidalik waxaad garan kartaa nabigeena calayhi salaam marka uu la hadlayo dadka in uu leeyahay guursada oo waliba gabadha marka laga hadlayo waxaad u guursataa ood ku doorataa bidaati diin. wiilka marka laga hadlayana laba arran buu sheegay nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi gabadhiina idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqah diintiisa iyo khuluqiisa oo dhisa fadawijuuhu. saas daraadeed intaasaan idiin haynaa walaalayaal. baaraka allah fiikum. aad baad u mahadsantiisaan noo daawateen. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. wixii talooyina loo soo gudbiya. baaraka allah. Facebook nagala xiriira waan mahadsantiin. asalaamu calaykum waraxmatullah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وأصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا ليال سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد كسر دواتان مركل ولا ليال برنامج كي أدنى قبرتين إن أنا همين كستو جمعة إدين كسو قد بنو تلفزيون عالمي سومالي كيبل حرونتي سد حيتهي مقالة لندن عريق UK. برنامج كان وحنقول تلقى سيداد أكتين ولا ليال إن أن كوكب عنه إن شاء الله تعالى قويسسكا قريها ريرها قوركا دلنيرة يسقور سنيسا كوا إسقابا كوا عرورتها اسكوله سيدي لما أنها سي يسكو فهمي لها ين لوهلي لها قويس adag xoog badan jacayl ka muuqdo ayaan ugu talagalay insha Allah taala. waxaan aad u jeclaan lahaa inaad ila soo dhaweysaan insha Allah taala macallimadeena aadka u qiimaha badan macallimad Hiba Cumar Geelle oo marka aan idin ka soo gudbinayno xarunta TV-ga insha Allah taala barnaamijkii hay-adda Happy Marriage Academy aan ku sameyn jirnay. walaalayaal waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada caawo jimco ah insha allahu tacaala barnaamij cusub iyo qodobo cusub oon caawa aan wadaagno. marka caawa waa live meel kasta yani waa toos baad noogala soconaysaan insha allahu tacaala. waxaan aad u rajaynayaa insha allah in aad kasoo qeyb qaadataan talooyin hadday tahay qisooyin hadday tahay aragti hadday tahay intaba aad noo soo gudbisaan si walaalaha caalamka inoo dhegaysanaya ama inoo daawanaya ay uga faa'iideystaan khibradaadii iyo experience-kaaga. lacalla waxaa dhici karta hal qof oo kelmadda aad soo gudbisay inay noloshiisa wax ka bedesho. caawa waxaan rabnaa haddii alla yidhaahdo mawduuca caawa aan rabnay in aan qaadaa dhigno daqiiqadaha soo socda insha allahu tacaala wuxuu noqonayaa luqadaha la isku fahmo. luqadaha la isku fahmo ee ka dhexeeya labada qof ee lamaanaha ah
إلهي سبحانه وتعالى ويسكو أبوري إني نلشا أي وضان إلى أنت أي كلمانيان نلشا سو إلهي سبحانه وتعالى وقتل قالي إن إسكو تقوذا إيا إسأرقوذا إيا وذا جوقوذا إيا وذا نولاشوذا أي كفر عمان المباركيسا أو إياقنا هدو تمركي كوران سي وضا أو إياقنا إسقور سدا أو تفير تسداس أسي وضا حرير كامركا إيا اللقضاء اللي إسكو فهمو وحان آدو الرجينيا وحكستو أو أدونك كجرائي وحوليا هاي اللقض لغو أخريو لقض لغو أخريو هداد ما أنت جاينا تكتيد أديقو أف صومالي كليا يقانا waxay kuu qasbaysaa in aad barato luqada Chinese-ka si aad u fahanto nolosha bulshada aad dhex gashay waad garan kartaan in nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa saxaabi kamida intuu diray inuu yiri cibriyada soo baro luqada yahuuda soo baro si makrigoodii iyo sharkooda mayane ee looga faa'iideysto loo fahmo waxa ay sheegayaan iyo dhaqankooda saas daraadeed wax kasta dhaqaaluhu luqad buu leeyahay lagu fahmo siyaasaddu luqad bay leedahay lagu fahmo horumarku sidiisaba luqad buu leeyahay lagu fahmo saas daraadeed qof kasta waxa looga baahan yahay marka haddii uu rabo in uu horumaro in uu helo furihii waxa uu u baahan yahay inuu adduunyada helo iyo heerka uu rabo inuu gaadho furahaasi markaa waa luqada shayga wuxuu u baahan yahay markaa inuu barto waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan qoys iyo guri horumarkiisa laba qof oo laba maskaxood kala wata laba qof oo laba dhaqan kala wata hadday doonaan iyagoo Soomaali ah bay laba meelood ku soo kala koreen ama laba guri ka soo kala baxeen laba noociyad bay kala yihiin waxay rabaan inay isfahmaan muqaddimada markaa ka bacdi waxaan insha Allah ta'ala caawadaagaynaa bal luqada la isku fahmi lahaa ninka iyo xaaskiisu gabadha iyo ninkeedu ay isku fahmi lahaayeen waxaan ku soo dhaweynayaa kelmadeedii hordhac ahayd macluumadeena hibo فليتفضلي مشكورا مأجورا ما شاء الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي بام هذا سكالة ولا ليال مر لبعض مريم مرصد حاد بيسكو كيني إن شاء الله يديكو والله بالنوغة داوانا يا تلفزيون كالصومالي كيبل بإذن الله الكريم ولا ليال وحويا ما درتي برنامج كين هورمرين تقويس كي يديكو سو دوينينا sidii caadada noo ahaydba waxaanu ka shaqeynaynaa oo iskugu imaanayna mar walba waa in nolosheena aan kobcino aan horumarino aan wanaag iyo khayr ay noo ziyaado biidnillahi alkariim labada qof ee isla nool ayaan caawa aad iskugu mashquulinaynaa sida uu Axmed soo sheegay luqad bay ku hadlaan dadku marka gabadhuna luqad bay leedahay wiilkuna luqad buu leeyahay marka luqadahaas inay isfahmaan ayaa la rabaa oo labada qofba ay baran karaan marka luqadaasi waxay ka turjumaysaa baahidaada iyo shucuurtaada iyo doonistaada iyo wixii aad rabtay ee qofka kale aad ka rabtay marka hadii la is agmaro oo aan la isfahmin oo luqadaha la isla qabsan dhibaato ayaa meesha ka imaanaysa marka walaalayaal caawa waxaan inii waadixinaynaa idikuma badinayna insha Allah 5 qodob oo kooban oo qof walba xifdiyi karo insha Allah qofkii amal galiyana uu arki karo natiijadeeda ayaa idin wadnaa 5 qodob wiilka iyo gabadhaba way sameynayaan qofka kalena sacaado iyo raaxo iyo nolol wanaagsan ayay kala helayaan biidnillahi alkariim ku soo dhawaada barnaamijkeeni wajazaakumullahu khayr wasalaamu calaykum barakallahu fiiki aad baad u mahadsantahay Umar walaalayaal 5 qodob waxaan ku bilaabaynaa qodobka ugu horeeya laakiin su'aal baan ka dhigayaa nin kaste markii uu damcay in uu guursado ama wiil kaste markuu hami soo galay in uu reer samaysto waxbuu ku fikiraa wuxuu isweydiiyaa iyaad u baahan tahay oo noloshan ku kamilaya walidalik ayadoo qof ka dhaqaaqayo war si aad u xasiloonaato si xasaano aad u hesho protection yacna naftaaduna ammaana u noqoto uga nabad gashid xumaan iyo macsiyad inaad ku dhacdo waa inaad guursato ninka wuxuu ka fikiraa marka gabadh waa inaad guursato gabadhu marka waxay u haysaa wixii ka maqnaa isaga baahidiisii oo dhan ayay haysaa iyadu u doonanayaa muxuu sameeyaa marka waxaan filayaa
in nin kaste uu soo maray amaad odhan doontiin ha dhowto geel laba jir soo mar. nin la arko wuxuu bilaabaa shukaansi ama sheekaysi ama in uu gabadh la bilaabo wadahadal. wadahadalkaayoo markaa ah bal inaan reer yagleelno. muxuu bixiyaa markaa? bal ila tiriya. kow, fikir. wuxuu raadiyaa qof uu suuraysto, sawir buu caqliga gashadaa, qof buu qortaa suuradaha iyo sifooyinkaa leh. fikir bay ka qaadatay. kow. labo, waxay ka qaadatay wakti. luqadan marka waxaa la yidhaahdaa quality time. wakti fiican in aad qofka aada la nooshahay aada siiso noloshaada ka mid a. marka waxaa la yidhaahdaa hibo, idinkuna waad nala garanaysiin dabcan, oo yacna marka la sheekeynaye dhalinyarada dhexdooda marka u horeysa hadallada dadka qaarkood aan weydiinay, seminaarada marka aan ugu tagnay, waxaa ka mid ah maxaa sameynaysa markaad gabadha guursanaysa. marka hadallo waxaa jira kaftan ah oo la yidhaahdo run been kusoo xerogeli, runna ku dhaq. waa negative soo ma? marka sidaa ma wada hoode qasab maaha inay saa noqoto, lakin waxaa laga wadaa sheekada hore qof kastiba qofka kale wuxuu tusayaa intiisa quruxda badan leh, ugu fiican, ee macaan, ee wanaagsan. nimanka ama ragga markaan nahayna waxaan iska dhaadhicinaa gabadha sidii aan u kasban lahayn aan u heli lahayn. gabadha dhinaceeda iyaduna waxay ka wadaa nooceeda shukaansiga. raggu marka waxay ku egyihiin baa la yidhaahdaa inta badan shukaansigoogu inta lasoo xerogelinaya gabadhee guriga inta uu nikaaxu ka dhacay. yani mar hadduu nikaaxu dhaco maxaa dhaca? marka halkaasaad kasii qaadi baan umalayna. mar hadduu nikaaxu dhaco sheekadu way isbedelaysaa. xoogaa nin walba waxaad moodaa inuu destinationkii aba meeshii loo socdo inuu yimiday. khaas ahaan wiilka oo ah qofkii dadaalka ugu badan bixinayay, waxaad moodaa meeshii uu maadaragtay u socday inuu gaadhay. mar hadduu qofku gaadho uu safarkiisii uu ku jiray uu ku gaadho meesha uu rabina, waxa uu sameynaya waa inuu fariisto, waa inuu nasto, waa inuu waqti qaato, waa in tacabkii iyo juhdigii iyo orodkii iyo hadalkii macaanaa iyo wixii oo dhan way ka kala baryaraanaysaa oo de ma sameynayaba hadeed wixii ma garatay. marka waxaa la rabaa inuuna juhdigu yaraan. in ilaahay mucjizadiisa jawhara waxa weeyaan waxyaalaha aan sheegi doonoo dhan wiilku badankooga uu sameeyaa markuu shukaansi ku jiro. kaliya mashkiladu waxay ka taagan tahay war please sii wada shukaansiga, sii wada guryihiina ku sii wada. ma fahantay? noloshiinoo dhan raaxaha noqoto, lianna natiijadu shukaansigu keena maxay tahay? inuu qofkii ku jeclaado, inuu qofkii noloshiisa kugu aamino, inuu qofkii ku soo raaco, inuu qofkii ku guursado, isku ka hadleeyo. ma garatay? waa success, waa wax wanaagsan, waa natiijo fiican. natiijada waxaad ku keentay dadaal iyo socod iyo orod iyo hadal macaan iyo hadiyadaad bixinaysid iyo kelmad wanaagsan iyo ziyaaro aan xad lahayn iyo sabir, ma fahantay? iyo dulqaad iyo dhibrin iyo wax walba, labada dhinacba. ma garatay? marka walaalayaalow, annagu waxaan rabnaa meherka uu dhacay, guryihii baa lagu soo hoyday, in jacaylku uu sii socdo, in isfahanku uu sii socdo. marka haddana waxaan geli doonaa biidnillahi alkariim mawduucyada 5 xabo qodob say u kala horeeyaan insha allah. waa sidaad sheegtay hiboy. runtii yacna shukaansiga ama sheekaysiga ama aan idhaahdo isqurxinta iyo qofku in uu wanaagga uu markaa uu leeyahay ee uu tusayo qofka inuu sii wado waxay u fudaydinaysaa kalsoonidii qofkani, trustigiisii inaad kasbatood heshid. laakiin laba dabac bay kala leeyihiin. ninkuna dabac buu leeyahay, gabadhuna dabac bay leedahay. ragga waxaan rabaa inaan la wadaago, gabdhuhu marka hore isma wada sheekada ma wada aha sheekadii dhabta ahayd. sheekadaasi waa sheeko testi ahayd, waa lagu tijaabinayay adiga in aad tahay kii saxda ahaa iyo in kale. laakiin gabadha sheekadeedu waxay bilaamataa marka aad mehersato, marka aad guursato,
marka aad gurigii aad u diyaarisay aad isla timaadaan markaasay u baahan tahay gabadhii inay sheekadii hesho inaad u sii waday ku riyoonaysaa ninkana maxaa ku dhaca gabdhuhuna ay ogeynibo waxaa ku dhaca nimanka waxay iyaguna leeyihiin waqti bay u baahan yihiin bannaankay ku maqan yihiin inta badan way mashquulsan yihiin mashquulka iyagoo daalan bay guriga la imanayaan gabdhuhu kama warqabo oo ma oga ninkan xaaladdu ku soo jiray waxaan rabaa inaan walaalaha la wadaago qisaan isla akhrinay aniga iyo hiw qisadaa runtii waa scenario dhab u dhacay oo ninka qoray uu ka sheekeeyey waxa weeyaan ismaandhaafka ragga iyo dumarka yacna nafsiyaadka ragga iyo nafsiyaadka dumarka siday yihiin gabadha waxay ku fikiraysaa in loo sheekeeyo in loo waramo in details loo sheego ninkuna maba hayaba awoodda uu details ku sheegayo ee uu ku hadlayo gabadha waxay u baahan tahay marka maskaxda ninkani iyo jirkiisu siday u shaqeeyaan inay barato waxaan aad idinka rajaynayaa insha allah inaad koorsooyinka aad raadsataan oo aad isqortaan si aad isku fahmi lahaydeen yacna boqolaal telefoon iyo email baa noo imanaya arrimahana maaragtay laga dacwoonayo waan idinkula talinaynaa runtii hadday idiin suurtagal tahay koorso ayaan maaragtay bilaabayna october hadduu la yidhaahdo inaad isqortaan ood ka qayb qaadataan hadduu eeba idmo meelaha aad degan tihiin iyo meesha aad joogtiin cid taqaano oo bixin karta haddaad heshiinna in aad raadsatiin waa muhiim jiddan arrintaasi qisadaa yar marka iyagu waxay ahayd qisadii maxaan ku idhahdaa ninka markuu soo rawaxo shaqada ay dhibta ka soo qabsatay isagoo madaxiisu uu tawaqsan yahay guriga uu ka soo noqday ee uu gurigii kala kulmay yacna haddaan idiin sheego wuu soo rawaxay maanajaradiisay isku soo qayliyeen marka guriguu yimiday guriga xaaskii markuu u yimiday waxay tiri haye maalintaadii ka waran waxay rabtaa iyadu inuu uga sheekeeyo A to Z siday wax u dhaceen markaas wuxuu ku yidhi tiibaa maantana igu qaylisay nafta iga qabatay waxaaban ka baqayaaba amaba ku fikirayaaba inaan shaqadaba uga tegaba way dhacdaa inta badan inuu qof intuu iska dhex arko shaqada uu uga tegaba gabadhii marka maxaa dhacay maxay samaysay marka gabadhii runtii waxa weeyaan ma sidii la rabay inay u dhaqanto oo nafteeda inay qabato oo sidii saxda ay marto mise sidii intay nafteedu ka awood badisay ay u dhaqantay markuu soo galay wuu sheegay inuu dhib uu maaragtay shaqadii ay ku soo qabsatay oo gabadh manajaradiisi ah oo xakuntay isaga ay la dagaashay runtii dagaal bayaduna ku qaaday marka waxay ku tiri in waxa weeyaan gardarro laguguma qabsanayo runta iska sheeg waxbaad samaysay waxaad khaldaysid iska daabay ku tiri ma garatay qofka managerka ku xukuma maaragtay iskama ka qabsanaya uun marka walaalo waxay tiri aniga ha igu waaline in maad aragtay warka iyo cadee marka isla markiiba uu isgalay qofkii wuxuu dareemay attack ma aragtay in la soo weeraro dareemay marka maxay heeda maya waa run buu ku yiri waxaan kuu sheegayo marka walaalayaal ayaa idinku dheereynin waxa dhacday in ay labadii qof isfahmi waayaan inay gabadhii iyo wiilkii ay maad aragtay aad ugu kala fogaadeen qisadaa yar ee dhacday laakiin iska dhaaf ma fahmaysid buu yiri marka uu frustrated buu noqday uu carooday marka uu ma fahmaysid buu ku yiri laakiin waxa la rabay in ay horta soo fariisiiso in ay isaga u muujiso inay sidekiisa tahay isaga inay la jirto ya way ku dhibtay qoftaas miyaa wallahi way ku rafadisay carada kugu jirtaan ka dareemaya sida ay maaragtay upset kaaga dhigtaan ka arkaya waxaas inay ku tiraado hadalla horta dejinaya inay ku tiraado kadibna ay ka gorto sheekada xataa haddii og tahay inuu isagu wax sameeyey ya ina qofkaaga waa taqaanaaye inay tartiib uga gortay ahayd laakiin marka ugu horeysa kuleylkan qofka lagala hortagayo ayaa dhib ah ragguna way sameeyaan gabdhuhuna way sameeyaan marka taas ayay ahayd ismaandhaafka aan la isfahmayn kaama gooye hiboy hadalkaaga macaan khayr allah ku siiyo waxa oppositekeeda ku ah ayadana sida oo kale oo scenario runtii scenaariyooyada casharo badan ayaa ku jira arrinta ninkaa ku dhacday runtii waxaan rabaa inaan idinla wadaago nabiga calayhi salaatu wasalaam markii waxyiga lagu soo dejiyo malakul jibriil uu sifadiisii malakiyada uu ku arkay ciriiriga uu dareemay isagoo argagaxsan buu guriga yimid fiiri lama odhan aayadda qur-aanka ilaahay markuu leeyahay wajacala baynakum mawadatan waraxma waxaa ka horeysa waxaa la tilmaamayaa raxmada iyo mawadadaas xagee ka timaada gurigu waa sakan cidda sakankaa ma taqaanin waa gabdhaha weyaan gurigu waa gabadha
xasiloonida meesha laga helayo ee loo imanayo ee raaxadu ka jirto waa gabadha. ilaahay ha idin barakeeyo. khadiija radiallahu canha maxay samaysay? nebiga way soo dhaweysay, markaasay u firaashtay, u godashay, markaasay weliba waxay ku tiri sida hadda hiba ay idiin sheegaysay hadallada macmacaan oo nebigu uu jecelayo qalbiga dejinaya. allahu akbar. waxaa laga yaabaa gabdhaha qaarkood aad daawanaysiin inaad isleedihiin oo sheekh de annaga dagaal iyo buuqa waan isku haynaaye. dagaalka iyo buuqa hiba ma laga bixi karaa? waa laga bixi karaa. sida dagaalkii buuqaba loo galay oo hadal baa lagu galay, ficil baa lagu galay, action baa lagu galay. dagaalkii buuqu kuguma iman moogtahay, kuguma soo dul degin. marka ficilkaaga iyo actionkaaga ayaad ku gashay dagaalka iyo buuqa oo dhaliyay. marka in laga baxo oo ficil iyo actionkaaga iyo dhaqaaqaaga iyo hadalkaaga iyo socodkaaga iyo habnoololeedkaaga aad ku bedesho noloshaada, nolol macaan aad kaga dhigtid. ta kale waxa ugu horeeya Axmedo waxa weeyaan doonista. ma fahantay? doonis ba ugu horeysa. labada qof haday doonaan wanaag inay noqdaan, inay noloshooda bedelaan, cid ka hor istaagaysa male, bal ilaahay uu ku garab galay. aayadii quraanka waxaan xasuustaa runtii oo aad iyo aad in maaragtay mar walba oon arko aan ka yaaba sidoo ilaahay noogu bandhigay uu noo tusayo. yaa qofkii jannada rabay Axmed oo maxaa la yiri? qofka jannada raba ma iska fariisaa la yiri? maxaa la yiri? waxa ugu horeeya araada ugu horeysa man araada al-aakhirah. waxa u socotid waa maxay? waa aakhiro. ma fahantay? waa janno. وسعى لها سعيها هندرة طلابتي قاضي أكشن كي لي يمدي فعل كي لي يمدي كورس قاطي بوغان خرستي باري أركي قف كنين قف كدوين هي هندرة برتي السيدة أبو ناكسون ولا معاملون لها مركز وهو مؤمن يسوق آمن سن آمنات وضي ماشي كما قلت أنا مبوحو ها بليف كويان محد بليف قريسان تاي وحد بليف قريسان تاي إنا طلابات قد أمرنا martay ku khasaareen oo mar walba natiijo wanaagsan ay kaaga dhalanayso haday talaabadaadu fiican tahay. wahuwa muumin isagoo aaminsan ilaahay, isagoo aaminsan qofku oo ajrina ka rabo. waxa guurka waxa weeyaan waa meel ajri lagu kala helo, waa meel jannada aan target ay noo tahay inaan jannadii baan u soconnaa. marka wadadii jannada waxa ku hortaagan guurigii baa ku hortaagan oo ah meeshii wax lagu barnayay. waa hay'ad, waa shirkad, waa wax walba guriga isku yahay. waa meel training oo dhan lagu qaato. haddaad communication bartid gurigaagaad ku soo baranaysaa. haddaad wax bixin rabtid inaad ogaatid gurigaagaad ku soo baran. haddii aad leader rabtid inaad noqotid gurigaagaad ku soo baran. wax walba guriga ayaa lagu bartaa Axmedo. ma garatay? marka walaalayaal waxa weeyaan ulaaika kaana sayyuhum mashkuura ilaahi yiri. natiijadii maxay noqotay? in ay mahadiyaan success ay ku dambayso. marka aayadaasan ku furanayna oo ku tadaburayna mar walba bi in ilaahi kariim insha Allah. intaas waa saad sheegtay way yaana iskama imaan hal hameen in la isku xanaaqo la isqabsado. waaran qasabna ma aha noloshu inay xanaaq iyo maaragtay isqabsasho una ay ahaato. waana yaana maalin baa waxa la soo qoray runtii waa arin u baahan in iyadana maaragtay la barto. conflictiga sidee loo manage gareyn karaa? isfahan la'aan haday timaado sidee looga bixi karaa isfahan la'aanta? waa wax u baahan in la baaro. dhibka ina haysta inagu baaritaanna ma samayno, fursadna isma siino, jaanisna isma siino oo maaragtay ma raadino markiiba waxaan ku kacnaa sidaan u kala carari lahayn. nasiib darrada inta badan dhacda iyo siday noola muuqato of course aqligeenu inta aan aqligeena ka soo saarno baa wax ku qabanaynaa. ma isodhanayno wad khaldan tahay ama aqli kale oo jira oo adiga maaragtay waxaad arkayso aanan arkay waxaad arkaynin arkay. scenario-gan idin sheegay scenario opposite ka ku jira oo ah gabadhu inay wax rabto ninkuna uu ka hor yimid. meelaha aan koorsooyinka aan ka tilmaano waxa kamid ah labada qof in ay isbartaan meesha ay ka yimaadeen, pastiga iyo history lesson-ka ay ku jirta. waxa dhici karta gabadh reerkooda u weyneyd ama curada ha u noqoto ama ha ku xigto, laakiin gabadh yaana shaqo qabanaysay, wax loo dhiibayay, maamulka ku fiicnayd inuu nin guursado. gabadhi waxay rabtaa wixii ay soo baratay ilaa waa skills waxa inay gurigeeda la timaado wixii samayso. marka waxaa dhacday hiboy gabadh baa waxay u timid ninkeedii waxay ku tiri waxaan rabaa in aan
inaan business iyo inaan wax galo oon wax sameeyo صح nasiib darrada gabadha ku dhacday marka ninkaas uu la fahmi waayey wuxuu kala hor yimiday negative arrin ayana ma يعني waxaan weligaaba adigu kuma jirini amal xageed ka keentay aniga maxaa dumarka kale iga galay iyo waxa aad wadid eeg qofku hadii uu wax hindiso uu wax rabo wuxuu u baahan yahay in la garab joogsado oo la garab galo oo la dhiiri geliyo waxa dhici karta waxa gabadhaasi ay rabto in horumar adiga iyo ilmahaaga ay idin soo siyaadiso kama hadlayna anagu wax xun laakiin wax fiican oo horumaran ka hadlayna waxaan markaa scenario-yada aan u galay wax kale maaha in la isku hadii waqti la isa siin lahaa oo si fiican loo wada hadli lahaa waa la isbaran lahaa waxay noqon lahayd way ka fududaan lahayd marka qodobka ugu horeeya waxaan idin weydiin lahaa insha Allah imisaad waqti isa siiseen inta qoysleyda xaasleyda hadda sheegay imisaad waqti idinka idin gaara aad isla fadhiisataan imisaad israacdaan 20 mitir baad kala horeysaan markaad wada lugeynaysaa magaalada oo waad iskala ilaalisaan ya waxa isweydiin leh sheekadiinu ma tahay sheekadii aad sameyn jirteen marka aad guriga aad dhisayseen mararka qaarkood waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inaad isleedihiin khiyaali miyaa laga hadlaya maya khiyaali kama hadlayno wax reality aan ka hadlayna waxaan rabnaana dhab inay noqoto waxaas daraad miyay ahayd isniintii ayaan masjid huda بعد العصر كلمة ير بان قشيد مركز صار حانري وحاز كجرنا وقت فرصة آد قيمة بدنا ذو الحجة اللي يلاحظوا بشي وبشي سنة كوجود دم بيسير لحساب تمي اللي سويدين هي سنة كي صار ضعفي محطكو ختمي طبعا عشوا إلى هي كل أرتي سورة الفجر ها والفجر وليال عشر والوتر والشفع والوتر ولا قرتي سماها طبعا كعشو وطبعا عشو مضن إن لا صومه إن قرآن الأخرستو إن صدق الله لبحه إن إلهي له دواد سبحانه وتعالى ما أنت عرفنا هي اللومين 4 صوص عطوا عليه هذا مركو حانري ما أنا أدو جعلها جرتين أن ذي لو ذاك بل ريارها أبيال بل مركا لها اللي أنا قوي هرجوجي ريارها إن آد محل ده صون إيه صدقات إيه قرآن قري قد حديث إن آد أبلودانه وليبا marka la isla afurayo xabada timirta inta soo qaadin afka xaaska u galisi maana wala gartay Soomaa odayaashii meesha waa la wada qoslay qosol baa laga kacay odayaashii kamid wuxuu yiri oo la isoo wariyo la ii keenay inuu la fadhiyo tarabba tardi way u dhahay baashani oo soo daahday dib u soo dhacday yacna waqtigan miyaan timir afka la isku galiyo bilaabi karaa marka waad bilaabi kartaa cid ku diiday malaha insha Allah taala waqtiga marka waa muhiim iibo gabadhu haday cilad dareento waa wadkeeda waasaas walaalahay rag la wadaagaya gabadhu haday cilad dareento gabdho badan waxay ka dacwoodaan inay raggu ka maqan yihiin guriyo qaarkood waxay ku burbureen ragga oo workaholic ah life balance ki inuu meesha ka baxay shaqada aad u kala hayso waxaad ugu kala haysa wax kala ma aha inaad iyada iyo ilmaha Ilaahay idinku arsaaqay aad ku dhowrto oo ku ilaaliso ayaad u shaqo tagaysaa uma shaqada uma noolid intaan isla fahanay insha Allah taala hadii ay gabadhii ka sheegato inaad ka maqan tahay oo markaad u timaadana adiga oo daalan ay noqoto karahiba imanaysa meesha wala iska rahayahibo sax waxaan filayaa gabadhu waxay jeceshahay xadiisna waan idin soo qaadan doonaa insha Allah gabadhu waxay jeceshahay in waqti la siiyo in la fadhiyo in loo sheekeeyo in loo dhawaado inta badan way naga maqan tahay iskuma dhawin contact badan naga wadxeeyo marka hibo walibana waxaan Axmed ku dari lahaa fadali geedkaas mawjeeda oo telefoon la yiri iyo teknolojiyada basiday doontaba ha ahaatee computer iyo iPad marka kaasaaba dadkii soo kala dhaxgalay ilaahay ma fahamtay kan waa mucjizo bahalkan in laga xurooba la rabaa oo meel la iskaga xiro kan lama noolid qofka ayaa la nooshay maadaama qofka la nooshayna waxa la rabaa in waqti wanaagsan oo fiican oo isaga ku mashquulshid inaad siisid isaga la sheekaysanaysa computerka ma waxa la hadlaysid isaga ayaad rabtaa inuu ku barto qofka ayaad rabtaa inuu ku barto kula nool ma garatay
bisha aan ku jirno barakaysanna waad arkaysin walaalayaal waxa manaasigta xajka la samaynayo dhan waa maxay waa qoyskii Ibraahim baa lagu dayanaya alayhi salaam nabi Ibraahim wuxuu sameeyay haweenadiisii waxay samaysay qisadii Ismaaciil wiilkiisii reer baari ah oo haweenay ninkeega adeecaysa oo u wanaagsan jawharo ilmo baari oo wanaagsan oo waalidkii baari u noqday ya in dad ilaahay tala saartay oo awaamirta ilaahay qaatay dad la imtixaanay ina bilaadan bay ahaayeen Ibraahim iyo haweenadiisa iyo ilmihiisuba waxay ahaayeen wiilkiisuba waxay ahaayeen dad bilaadan oo sideena oo baqaya oo cabsanaya ya cidla hadii lagaaga taga ka war ya ayaa nooga tagaysa markay Haajara tiri maxaa uu ka aamusay nabi Ibraahim ilaahayna ma dayacay tiri waa runteed iimaan baa la rabaa meeshan walaalayaal waxa dadka isku diraya waa qalbigii baa qalalay qalbigii baa ingagay ruuxdii baa baaba'day iimaankii baa yaraaday markaas ceebaheennii oo dhan ayaa isku soo muuqday marka waxa ugu horeeyo in la rabo inaan ka bilowno ay tahay waxa weeyaan in waqti la siiyo ya in la isku sabro oo waqti la siiyo ayaa la rabaa oo qofka fiirisid oo la sheekeysatid oo indhihiisa adeegtid oo telefoonad kaga mashquulin oo computerad kaga mashquulin oo wax kale aad kaga mashquulin hatta hadalka aad ku soo gaagaabin isaga waqtigan iska leh saacad ha ku noqoto 2 saacadood ha ku noqoto weegi waxay doonto baha ahaato ma garatay marka walaalayaal quality time waa time qiimo leh eeg wax qiimo leh in Allah ilaahi waa tayyib لا يقبل إلا طيبة واحد طيبة ما إلى وح كلام أقلاده ما قرأتين مركا ما دام وحن ربنا إتقاننا نقلنا عمل كهنا وناجنه وعمل في عن نقضه وحويا ويلكي قبضه مركا وقت إساسينيا ووقت وناكسن أو في عن أو كافئة أو مشغولة ودن أنت إسكحيرين أيجو إسكو مشغولة يا ربنا أحمده ما شاء الله تاسع نجهر مرنا إنه محاكو حاجة quality time ka runtii markii la isdiyaarinayay aad baa loogu mashquulsanaa laakiin markii guriga la yimiday ogaada guriga markaad guursato guurku noloshaadu bedelaa guurkaagana waxa bedelaa ilmuhu markay yimaadaan jirkaagu isbedelayaa fikirkaagu isbedelayaa dhaqaalahaagu isbedelayaa wax badan oo marka hore kuwa caadi ahaa baa ka baxaya sidii uu ahaa marka saas daraadeed waxa la leeyahay waa inaad waqti isa siisaan fiican waxaad ku darsataa marka qorshaha hoosta ka xariiqataan adiga iyo xaaskaagu inaad isku baahantihiin inaad jawiga bedeshaan oo routiinka jabisiin inaad baxdaan oo isla safartaan inaad labadiinu isla kaliyowdaan Finland baa waxa la nagu weydiiyay aniga iyo hibo deewaan waaweynaanoo dad waaweyn baan nahay sideen u soo celinaa maartay jacaylkii marka jacaylka bilaabaysay seed ku bilowday kalimaad isla haydeen Soomaa waa isguursateen laba san noqotay idinka isdaawanayo isfiirsanayay shimbirad isla haydeen sidii sameeya waxa la idin ka rabaa walaalahay khayr Allah idin siiyo inaad la jecel iska qabtaan insha Allah ta'ala xadiiska aan rabayna idin la wadaago Salman al-Farisi radiyallahu anhu ayaa wuxuu ziyaartay Abu Darda uu mashquulay waqti buu siin waayay markaas waxay leedahay gabadha cajiibka u fiirsada Salmano inna akhuka walaalka Abu Darda ليس له حاجة من الدنيا بيتر الدنيا ده وضن كليه ما جرته النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفر سيا الدنيا متاع وخير متاعها زوجة صالحة الله أكبر الدنيا متاع الدنيا ده النبه والراحة يركوبا سما والراحة ويل وحنا أهم عن راحة داس أفر سيا وحأهم عن زوجة صالحة هواني وناكسن أي أقوم عن بدي النبي صلى الله عليه وسلم إيادو قبضوا مركا هلك الدنيا سو الدنيا دي أردن ليس له من الدنيا حاجة إيادو نفيري ماشي كنت يعني أنا قداني قملوي مركا سو سلمان الفارسي وحوليه أبو الدرداء مركو أركي وأركي إنه همان صلاة كم قيها وتأذيه درار ودنا أوسوميه أيا وحكولي إن لربك عليك حق سبحان الله وإن لنفسك عليك حق وإن لأهلك عليك حق محاك حقا فأعطي كل ذي حق حق أساس الله عدكست حقيقة سي نفتاغا سي ربك سي حاسكاغا سي ننكاغا سي المهاغا سي عدكست حق وله حق وذا أقود قضوا كامركا إساقا كليجي بابا لارنبا أو أباهن إن آن عشر رؤان كقادنو وحنقود بينا إن شاء الله تعالى
qodobka ku xiga waxaan rajaynayaa cabdisamed insha allah in uu telefoonka soo gudbin karo walaalaha cidii ka qayb qaadanaysa جزاكم الله خيرا تفضلي قضبك كحق أحمد وحوين نعم. الكلمة الطيبة الله أكبر كلمة طيبة أو نكسن أو في عن أو تقفك كل النولاد كتجهدد نعم يا وحول أحمد وحال فيري بيها سال سوق هذا بيو بال سوق هذا نعم nin muslina wuxuu ka qayb galay convention biyaha looga hadlo waxa ku jira biyo wax nool yihiin waxa soo dhan waxa ay sawiraan marka waxa la tusay sawiro biyo la amaanayo loo heesayo lala hadlayo dadku waa gaalo ma ogtahay waxa ku mashquulsan ninkan muslimka ah wuxuu yiri hadayba hadal tahay quraankii baaban haysanay markaasuu qaaday quraan buu ku akhriyay suuratul faatiha ayuu biyihiisa ku akhriyay aagad yaro caynkaasuu haystay سورة الفاتحة مركو بيه كو أخرية بيه بالباري وحا انت برفيه برف لغا دغاي بال اسكان غري صور كي برف كي وحو نقداي فلاور قروح بدن عجيب عجيب بيه waxay noqdeen wax qurux badan oo la argo la maqal kaasa ugu qurux badnaaday kii quraanka lagu akhriyo ayaa ugu qurux badnaaday ninkii waa la aamini waayo waxa lagu yiri wixii aad ku samaysay biyahan hortayada ku sameey mar labaad caagad kala loo keenay akhri baa la yiri wixii aad ku samaysay wuxuu yiri sheekadu way qaraaratay isugaan waan soo weysaysanaya وصو ويسقاطي وضو انتو سو سمي اي سورة ياسين او دنكو اخريه بيه بيه waa laga yaabay bal biyihi ba impactigaas raadka inta leeg ay kelmadu ku leedahay ma fahantay qofka bilaadanka maxay ku yeelan ya qofka bilaadanka qalbigiisa nool ee u baahan hadal macaan ee wanaagsan intay raad ku yeelanaysa kalimatu tayyiba loo baahan yahay كلمة طيبكو نوعية بدن بيلادي جوهرو نعم. إنانكو أمانو وكلمة طيبة إنانكو ديرقليو وكلمة طيبة ما فهمتي إن أنا إيقبقين أو مركز ياركتب بصور حون أنا ديق قادن أو غور ما يقايلين غور ما يكو عنانا غور ما دو مركنا عنان بالغو يقانا دو مركو ilmo ragooga waxay ka dhigtaan ilmo aqalka kula nool sida u socoto ay marka dambe canaan caadi ah imaanayso hooyo noqonaysa marka gabdhaha waxa laga rabaa wiilasha qaba inay u noqdaan naxariistii hooyadana ay siiyaan iyo daryeelka hooyo oo wiilku ka helayay in saaxiib hadalkeegiina inuu ku helo canaantii hooyadana kama rabo eeg daryeelkii hooyadu ka rabaa laakiin canaantii hooyada kama rabo laana iyadu may dhalin qofkan mogtahay marka waxa weeyaan walaalayaalow kalimatu tayyiba ayaa ku xigta oo labada qofba looga baahan yahay wiilka oon maaha gabadhana ma waa loo siman yahay qof walba u baahan hadal wanaagsan oo dayiba wanaagsan marka waxa weeyaan kalimatu tayyiba raad weyn bay ku leedahay qofka ninba wuxuu yiri hal kelmo oo wanaagsan oo la yiraahdo 2 bilood baan ku shaqayn haddaan maanta kelmad fiican tiraahdid oo qalbigayga taabata 2 bilood ayaan ku moodi aan ku shaqayn buu yiri ma garatay marka maxaa ka soo horjeeda canaantii in dagaalkii haydi hatta dad baad dadka caaya moogtahay habaarkii dad baad dadka habaara haweeney aad qabtid inaad habaartid amba ninkaaga inaad habaartid wax walba dadka ay sameeyaan marka waxa weeyaan waxa ina soo galay kaana gooy hadalkaaga macaan walaal baa raba in wax nala wadaagaan insha Allah assalamu alaykum aw ka baxan rajeenaya oo ku soo noqon doona insha Allah assalamu alaykum walaal oo magacaaga iyo meesha aad naga soo wacayso noo sheeg khayr Allah ku siiyo waan gartay cabdirasaaq soo dhawo walaalka ilaahay kugu xafido meesha aad joogto TV-ga iska gaab insha Allah waxaan su'aalo ah dumarkeeda qaab dhaqan bay leeyihiin hadda marka dhaqankaasi looga gudbi karo iyo idaftiga ay keeni karto inaan ogaadan doonayaa si fiican codkaaga cabdirasaaq oo si fiican cod ha cabdirasaaq oo codkaaga si fiican uma maqlo walaalkii adoo raalli ah su-aasha haddaad iigu soo celin karto waa hadal kati ah oo aan dumarka Soomaaliyeed ku arkay ay aan noolnahay baan doonayaa inaan in yarkaa su'aalihiisa looga gudbi karo haye anagu
soomaalidaan nahay ragga waxaan u baahanaa dumarkayga iyagoo naqaan in ana every time aan xaajo aan u baahano inaan la xaajoono aan u yeelno midano xaaja ayagaa soo gashay iyaguna way diidaan sidee loogu gudbi karaa qoraale. waan gartay dumarka in lala xaajoodo oo lala sheekaysto. sheekada iyadu waa iska waa kaas waa waadixa weeye meel yaalla waxaan doonaynaa istareex inaan la yeelano dumarka iyaga kulla saaca ay niyadeeda soo gasho kulla wakti inaan macnaha aan ijmaac la sameyn iyagana way iska kaaga daboolaan wayna diyaan sidee uga tallaabi karnaa sidaas adigoo dhaaga. waan gartay hayeebo inaan la xaajoonaan rabdaa buu yidhi oon maad aragtay walaalka intii aan ka fahmay oon dumarkeena markaan u baahano iyo markaan u yeedhno ayaguna way iska keen daboolaan oo iska keen diidaan camal nacam waa madaxadayga ma fahantay. cabdirasaaq waa mahadsan tahay sax wey saasaan ka fahmay marka runtii meeshan diin baana kala wada akhiyo waxa weeyaan muslimiin baan nahay miqyaaska iyo standardka noo yaala waa diintu waxay ka tirana way caddahay ma garatay laakiin marka laga soo tago ina waxa xaq la iskugu leeyahay oo la og yahay waajib gabadha ku tahay inayna ninkayga isku diidin la og yahay haddana waxaa taala akhiyo de adigu qofkan bil aadanka ma aragtay ay muaamaladaada ama dib u fiiri ma fahantay waxan waa interaction waa tabaadul ma garatay waajib waa la igaga dhigay waa run laakiin macalinka imika ardaygiisu inuu wax baro waajib bay ku tahay laakiin sidoo u bari de waygu u bari qofna waa qof naxariis ku barayo oo hadal wanaagsan ku barayo oo kalgacayl ku barayo oo u dhibranayo qofna waa qof shadiid iyo ushii aad taqaanay Afrika de lagu barayo ma garatay labada qofba waxba la baray laakiin way kala duwan tahay qaabka loo baray marka waxa weeyaan wiilka iyo gabadhu isku qofna qofka kale ma diidi karo haday wax jirin waxba jira always waxa jira in dib loogu noqdan jeclaan jazakallahu khairan tala fiican way cabdirasaaqna way gaadhaan rajeynaya taladaasi aniguna waxaan dhihi lahaa inta in la mid runtii in waxa keenay diidmada iyo isku diidta inay gabadhu isku diido ninka waa in la fiiriyo dabcan casharada ku jirtaa oo waxaan idhaahnaa anagu qolka hurdada qurxinta qolka hurdada ama the art of intimacy taa waxaan uga hadalnaa marka baahida la gudanayo sidee loo gudan karaa marka maraaxil bay soo martaa meesha doonta caalamka ka joog Afrika joog Carabaha joog marka maraaxisha ay marayso ama labada qof sida ay isku qaabilayaan in dib loo muraajaceeyo ayaan anigu ku dari lahaa sida ay hiba sheegtay telefoon kala ku jira jazakallahu khairan cabdirasaaq aad baad mahadsan tahay assalaamu calaykum السلام عليكم walaalkay magacaagi iyo meeshaad naga soo wacday telefoonkan iska gaab insha Allah TV ga raah عبد الرزاق هيه تفضل waxaan ka dhawaajiyay walaashayo in macnaha khilaafkeedu diidna keenay uu jiro ay ka dhawaajisay dumarka iyagu waxaa lagu yaqaanaa waxa la yidhahdo xishood waxaa kaloo lagu yaqaanaa dumarkeeda waxa la yidhahdaa hinaafur meesha hadduusan hinaa ka jirin xishood baa jira marka waxaan ka hadlaya waa xishoodkii in ruuxa dumarka loo sheego sharciyan in ninkeeda dhakaan uu u baahan yahay ay markeeda wabilaasheeda cabdirasaaq aad baad waasan tahay risaaladaadu waa waadix kolley walaalaha caalamka meel kastay joogaanna way ku maqleen sida ninku wax ugu baahan yahay bay gabadhuna ugu baahan tahay iyada laftigeedu casharadan sheegaynay in la qaatay u baahan tahay insha Allah waxaa xishoodka waxaa la yidhi ceebtaa laga xishoodaa xumaantaa laga xishoodaa lagama xishoodo xalaasha iyo waxa wanaagsan marka insha Allah tacaala su-aasha walaalkaana soo galay khayr Allah siiyo waxaan uga baxaynaa in waqti munaasaba la isa siiyo wixii xalaashaana aan laga xishoonin inaana la isku aadin waqtiyada karaahiyada ah qofku uu daalan yahay مثلا hooyada oo kale de idinku Afrika ba joogtiin laakiin anaga qurbaha oo kale marka la joogo daal badan baa jira marka
in la isla ballamo, in waqti fiican la isla aadiyo, raaxada inuu qofku ku raaxaysto baahidiisa gudashadeeda ayay u sahlaysaa. haddaan kusii soconno qodobkii ahaa kelmadda wanaagsan hibo, kelima ayiba sadaqa uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, waa adigii aayaddii qur-aanka ahayd, ilaahay ma aqbalo, ilaahay waa wuu wanaagsan yahay, ma aqbalo ilaa wax wanaagsan mooyaane. waxaa meeshaasi kelima ayiba marka la sheegayo waxaa soo hoos galay culimmadu marka ay tilmaamayaan communicationkii, wada xidhiirkii, cilaaqadii, wada hadalkii, sideen u wada hadlaa. waxaa ka mid a maalan raggu waxay jecel yihiin, gabdhaha ayaa la wadaagayaa dhegaysanaya, ragguna laftigoodu way yacnaa ama way qiri karaan ama waxbay ku dari karaan. ninka wuxuu jecel yahay guriga marka uu wax ka qabto ama uu gabadha wax la qabto oo banaanka uu wax ka keeno, wuxuu jecel yahay in lagu yidhaahdo kelmad wanaagsan oo maalan khayr allah ha ku siiyo, waad noo soo adeegtay, khayr allah ha ku siiyo, gurigaad naga hagaajisay. gaar ahaan dadka naga galbeedka iyo qurbaha ku nool ee labada uuni maaragtay ay wada nool yihiin iyo caruurtoodu ee aanan haysanin cid kale oo wax la qabata ama gargaar. ninkii markaa muxuu helayaa dhiiranaan, wuxuu ku yani dhiirigelin bay u noqonaysaa, wuxuu ku dhiiranayaa berri toole inuu haddana wax kale u qabto. laakiin gabadha aaminsan ka waran, yani arrintaa markaan ka hadalnay anigii hibo telefoonadii iyo seminaarada, gabdho badan runtii waxay noo sheegeen, ay yidhaahdeen de waa waajibkiisii buu qabsanayay, ma waajibkiisaan maaragtay somaad arkin, laa shukra cala alwaajib, laa shukra cala alwaajib, ma waajibkiisaa weliba ku idhahdaa thank you, waaba ka darayay. laakiin markay tijaabiyeen natiijadii feedbackii noo soo noqday muxuu noqday? in uu ninkii yidhaahdo halkeed ka soo baratay hadallada fiican ee macaan. waxaa ka dhalatay markaa in uu horey usii wado arrintii, uu ziyaadiyo, gabadhiina maaragtay ay ku farxo. marka kelmadda wanaagsani raad weyn bay ku leedahay ee qof kaste. ninka baan sheegnay soo ma, gabadhuna waa sidoo kale hibo, waxa ay ku nooshahay hadalka ninkeeda. raggana waxaan u sheegayaa hadallada macaan meeshaad ka keenaysiin, ragga dhowr meelood baa looga baahan yahay inay furfuraan. waxaa looga baahan yahay indhahooda inay furaan, waxaa looga baahan yahay sankooda inay furaan, inay waxna arkaan waxna uriyaan. fiiri, inay arkaan gabadhan quruxdeeda iyo bilicdeeda inay arkaan oo ay sheegaan baa looga baahan yahay ragga. haddii la isku kaa qurxiyo oo aad sheegi weyda waxba ka waran, hayaybo gabadhaas sidee maxay dareemaysaa? gabadhaa waa niyad jab. waad ii nooga sheekeynayay gabadhii maxay ahayd 30 cisho. waa wax la barto, laakiin akhiyo waa wax la barto oo ah haddii routiinkaaga iyo noloshaada dabiiciga say u socotaba ay tahay inaad isqurxisid ood hagaajisid ood bilicdaada soo muujisid ood maaragta. nacam, qofku waa inuu isna ammaanteedii iyo eg waa action iyo reaction, ma action and reaction, cause and effect weeye. anigu waxbaan samaynayaa, adigana jawaab baa lagaas aad ka samaynaysaa. wixii adigaa ficil la imanay, anna waan kuu jawaabayaa. ma garatay? waad isa soo qurxisay, suud qurux badan baad soo xidhatay, wax walba ma fahantay, waad soo cadarsatay, garkaad soo xiratay, tintaad soo jaratay. haddaan ku dareemi waayo ka war, ya ood welibana isii weydiiso oon kusii dareemi waayo, haye maanta maxayga si aan ku idhaahdo igaga soo saartid qasab, bal maanta ka waran seeno eka, waa dhibaato arrintaa. gabadhuna sidaas le walaalayaalo, wallaahi in lays arkaa la rabo. indhaha uu sheegaya Axmed waa runtiis, indhahayna inaan furno, oon dhegahayna furno, oon maaragtay afkeennuna uu noqdo kii cabirayay waxaasoo dhan. waxaad arkashay sidoo dhan kii maaragtay cabirayay ee kelmad wanaagsan kor saarayay. waad qurux badan tahay, waad wanaagsan tahay, waad fiican tahay, waxaasoo dhan ayaa la rabaa walaalayaal. insha allah khayr allah ku siiyo. maadaama waqtigii uu gabagaba yahay insha allahu tacaala, shantii qodob waxaad moodaa in tii u horreysay tii labaadba aan dhaafi weynay. insha allahu tacaala waan sii wadi doonaa xalaqadaha inoo soo socda. hal xalqad waxaan idiin tilmaamay hal qodob oo aan dusha aan ka yar dul mari doono. qodobkaasi waxa weeyaan hadiyadda. nebigu wuxuu yihi tahaadu
taxaabu tahaadu taxaabu waxaan sameeyey clip la yidhaahdo love challenge waa aragtay mar malinaya youtube-ka ka fiiriya maalin maalmaha kamid reer muqdisho aad baan u salaamayaa si fiican bay ii soo dhaweeyeen khayr allah siiyo markaan u sheegayna way garteen baaraka allahu fiikum barkin baan soo qaaday ay ku qoran tahay I love my wife xaaskaan u keenay masaajidka markaan ka soo baxay masjid raxma markaasaan ku yidhi hadiyad baan kuu sidaa waxaan jeclaaday marka hadiyaddii inaan dadka la wadaago oon runtii aan tuso su-aal bay weydiisay hibo waxay tiri miyaad iga fikiraysay markaad soo qaaday barkintan miyaad iga fikiraysay markaas waxaan ugu jawaabay de waatan way hor fadhidaaye waad ujeedin idinkune waxaan ku yidhi oo de miyaad madaxayga ka baxdaaba markaas runtii aad buu kelmaddaasi aad bay qalbigeeda u taabatay anigana kelmad i dhaqaajisa ayay igu tiri waxaad i dareensiitay tiri waxaan caadi ahayn aaw waxaan dareemay tiri waxaan caadi ahayn runtii waxaa loo baahan yahay markaa hadiyadaasi waxay dhalinaysaa qofka kalgacal bay ku siyaadinaysaa qalbigiisa waxaan odhan lahaa rag iyo dumarkaba in la isku hadeeyo munaasabaadka keliya maaha surprise iskaga dhiga qofka oonan filaynin marka laguu keeno adiga oonan filaynin xataa mararka qaarkood aayado qur-aana kugu soo dhacaya ilaahay qur-aanka aayaddii maxay ahayd waman yattaqi illaha yajcal lahu yarzuqhu min xaysu laa yaxtasib soo mahay adiga oo iska dee aan ku tashanayn waxbaa laguu keeni marka lagu dhahdo waxaan yaray quruxda badan waad farxaysaa marka waxaan kusoo gabagabaynayaa kelmaddaas insha allahu tacaala intaanan soo xidhin 2 qodob oo kale ay noo dhiman taana effectigeeda waan dhex gali doonaa waxaan kusoo dhaweynayihiba in ay noo soo gabagabayso insha allahu tacaala iclaanna waan idiin sheegi doonaa baaraka allah fiikum runtii aad baan idinku mahad celinaynaa wanaagaas aadna dhagaysateen iyo waqtigiina aadna siiseen in barnaamijka 5 qodob haddaan kusoo celiyo oon hormaro waa waqti qiimo leh in laysa siiyo kelmad dayiba in laysa yidhaa hadallo wanaagsan oo hadalba hadalku ka fiican yahay eeg fannigaas in la bartaa la rabaa ma garatay oo lagu talax tago la sii barto in marka dambe arwaaxda isku xirmaysa xataa qofku way isdareemi doonaa labada qof ayagoo meelo fog kala jooga bay quluubtooda iyo shucuurtooda isku xirmi doontaa ma fahantay meelo fog iyagoo kala jooga ayay wax mida ka wada fikirayaan hal mar marka heerar cajiib ayaa la isla gaadhay haddii lasii horumariyo cilaaqaadka labada qof waxaa kusoo xigta hadiyadda in la isku hadiyeeyo waxaa kaloo kusoo xigta maad aragtay khitmada guriga in la iscaawiyo oo la isgargaaro oo qofba qofka kale uu caawiyo oo maaragtay dhibta iyo hawsha taala noloshu waa wada hawle hawsha la iska fudaydiyo waxaa ugu dambaysa physical touch oo ah in labadii qof ayna kala fogaan ay isku soo dhawaadaan oo jirkoogu istaabto oo mar walba gacmahays haystaan oo mar walba maaragtay isku soo dhawaadaan si dareenkoogu uu maaragtay mid uu noqdo biidnillahi alkariim 5 qodob baan soo qaadanay caawa ilaahay ha nagu anfaco biidnillahi alkariim kuwii ku noolaadana ilaahay ha naga dhigo waana nolosha sacaadada waxaan anagu u soconno aan rabnay inaan gaarno jacayl iyo waxaas markay dadku yidhaahdaan qiimahay ka qaadin kelmadii jacaylka xataa qiimaha ka qaadin jacaylka wax kastaa ku nool ya wax walba u baahan jacaylka ilaahay adoomadiisa uu jecel yahay adoomadiisuna ilaahay way jecel yihiin rasuulku ummadiisa uu jecel yahay annaguna rasuulkeena waan jecelnahay qof walba hooyadu ilmaheega aabahu qof walba ma garatay xayawaanka ayaa ku jeclaanaya haddii sulugaaga iyo dhaqankaaga uu fiicnaado iyo naxariis ay ka arkaan way ku jeclaanayaan walaalayaal jacaylka joogtada aan ku wada noolaano biidnillahi alkariim ilaahayna aan uga baqno mas-uuliyaadkana saaran iyo nolosha aan ku wada noolnahay qof walbana dib ha isku fiiriyo dadku waxaad moodaa inay iska nool yihiin iyagoona isxisaabinin isxisaabiya oo isweydiiya oo habeen walba waxaad istiraadiin qoftan waajibkeed ma siisay gabadhan kula nool xaqiiga ma siisay gabadhan ay tirado wiilka kula nool xaqiisa ma siisay ilaahay in la iskaga boqo ayaa la rabaa intaasan kusoo koobsanaynaa وجزاكم الله خير بإذن الله الكريم. aad baad mahadsantahay baarak allahu fiiki jazaak allahu khayran walaalayaal sidaad noo daawateen aad baan idinka mahad celinaynaa ilaahay mahadiisa ka soko waxaa mahad ballaaran usoo gudbinaynaa walaalaha maamulka telefishinkan caalamiga Somali Cable oo fursadan idin siiyay runtii in aan halkan soo fadhiisano oo idinla wadaagno waxyaabahan soo akhrinay iyo waxa aan ku noolahay iyo waxaan aaminsanahay
in ummaddu ay ku noolaadaan ay helaan oo ah guri qurux badan oo raaxo leh oo aabihii hooyadu ay isjecel yihiin oo ay isku dulqaataan oo ay isu naxariistaan oo ay isa sidaan oo ay ku hamiyaan inay jannada isla galaan oo ay ku hamiyaan sidii nebiyadu ay ku ducaysanayeen ilaahayow ehelkayga iyo durriyadayda ilaahayow qurratu cayni iga dhig nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam marka jazaakum allahu khayran saad noo daawateen waa walaalkiin axmed jawhar iyo walaashiin hiba cumar oo idinka soo gudbinaya happy marriage academy hay-adaas telefishanka caalamiga somali cable maqarkiisa uu yahay london khayr ku bariista baarak allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu calaykum asalaam اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا